argagixisada al-shabaab waxay marar badan isku dayday sidii fikirkooda guracan ugu soo tallaabin lahaayeen Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyagoo isticmaalaya xeelado kasta oo ay ku hirgelin karaan damacaasi isku daygoodii koobaad wuxuu ahaa 2015 xilligaasna waxaa damacoodii been yidhi oo gacan xun ku dhuftay ciidanka deegaanka Soomaalida balse intaasi kumaysan joogsanin isku dayo kale oo ay sameysay argagixisada al-shabaab sidii ay deegaanka ugu soo tallaabi lahayd fikirkoodana ugu soo gudbin lahayd waxaa markasta fashilinaya sirdoonka deegaanka iyo dalka oo maalin iyo habeen la socday dhagarta ay soo maleegayeen argagixisadu ee ah inay mar uun daadiyaan dhiigga shacabka deegaanka Soomaalida 2022 komishineerka guud ee komishinka booliska dawladda deegaanka Soomaalida sareeya guud Cabdi Cali Siyaad oo ahaa taliyaha guutada labaad ee ciidanka deegaanka oo ka howlgali jiray aaga fiiq ilaa ceelkari ayaa si dhow ula socday dhagarta argagixisada iyo damacooda ku aadan inay deegaanka ka sameeyaan unugyo argagixiso taasoo fashiliyay xogahoodii waqtigaasna uu warbaahinta la wadaagay waxay tirtay in ururka argagixisada ay shabakad ay ka sameeyeen shabakada kolkii ugu horeysay waxay ku bilaabatay in odayaal dhaqameed gobolka Afdheer iyo gobolka Liibaan iyo qaybo gobolka Shabeelle ka mid ah in odayaal dhaqameed looga yeeray Soomaaliya oo uga yeereen garanaysa ururka argagixisada odayaal dhaqameedkaas oo kolka horeba iyaga xiriir la siilaha ayaa looga yeeray odayaashaas waxaa la qabatiyay in ma garanaysa gudaha waddanka Itoobiya sidii ma garanaysa urur al-shabaab ah loogu beeri lahaa inay ka shaqeeyaan iyagoo ma garanaysa adeegsanaya odayaalnimadooda iyo aaminaadda dadka shacabka gudihiisa ay ku leeyihiin qorshahaas al-shabaab ay ka soo qaateen qorshihii ay al-shabaab ka soo qaateen uu u furi oo ma garanaysa waxay bilaabeen markii ugu horeysay inay dhalinyaro ma garanaysa ay leeyihiin waxbay Soomaaliya ka soo baranayaan in laga qaado degmooyinka sida degmada ceelkari oo kale sida degmada Sharrati oo kale iyo degmooyin kale oo labadii gobol ee carabka ku soo dhufanay hoos yimaad ayaa laga qaaday dhalinyaro waxa la geynayay jilib iyo saako meel la yiraahdo iyo degmo jilib la yiraahdo koonfurta Soomaaliya tababar iyo ururka argagixisada halka ku soo siinay tababarka la soo siinay dhowr nooc uu kala aha qaar ma garanaysa waxay soo qaadanayeen qarax ama qaraxyada ma garanaysa imka Soomaaliya aan ka aragno oo kale waxa noqdaan ama miilooyinka wadada la galiyaa waxa noqdaan qaar qarax bay ma garanaysa ay soo qaadanayeen qaar tababarka caadiga ah ee ciidanimo ay soo qaadanayeen marka dhalinyarada kolkii ay soo tababartay tababarkooda ay soo dhameystaan gawaarida ma garanaysa caadiga ah shacabka iska soo raacayeen hogaamin gudaha sii joogtay oo ma garanaysa gudaha sii joogtay bay u iman jireen hogaamintaasina waxay u sii kala diri jirtay reerahoodii inay ma garanaysa inta looga yeedhay ay sii joogaan tababarkii wuxuu kolku socday kadib waxa iyadana ma garanaysa ay suurto geliyeen in hub la soo rabo hubka kolkii ugu horeysay waxa la bilaabay in hub trayer gawaarida xamuulka ah ee rarka wada sagxadda in hub trayer loo soo dhigo mararkii ugu horeysay 10 qori baa lagu tijaabiyay 10 qori kolkii ay soo xaroodan kadib 20 baa lagu tijaabiyay way soo xaroodeen markii ugu dambeysay 100 qori oo sagxadda ma garanaysa waa dareemaysa qoriyo ma garanaysa la isticmaalin oo bacdeed iyo wuxuu ku jira kolka sagxadda la soo dhigay wax yar bay qaadanayaan inta kale run baa loo korreysiinay qalabkii ma garanaysa wax lagu baadhayeen xadka inta badan ma yaalo rarkana inta badan lama wada jirto marka hubkuna qaab noocaas oo ku soo galay kolku soo galay uu soo galay hubku intiisa badan degmada ceelkari baa la keenay waxa loo dhiibay niman wakiilo ah ma garanaysa al-shabaabta wakiilka ah yaa loo dhiibay nimankaasina dad tira yar oo ma garanaysa aad u kooban iyo ma garanaysa intay soo kaxeeyaan iyo aaseen dadka hubka la aasaya ugu badnaan 4 ruux
يا هوب كأساس هوب كأوجو بدنا يعني عن هالجواب كسر صاروا لحدا قريبه كنتن أكيد يتهم بسوكي يا هاي هوب كأوجو بدنا يعني عن هالجواب عن كسر صار هوب كإدل وحا أست أفرن باست أفرن إنه ولي بقرابة يسودوا أفرن إنه سيمينار يعني سومالي كسوقات أو دارسنيال أو وكيل يعني ماشي فدا هي عاصم مركا هوب كنا مقرنا يساقاب نوع عاصم يكسو كله قرشها مركا الشباب أيضا مع سنة وحوها هوب كا أفرتها قبل يعني كل لقول لما يسترو هوب كا مقرنا يساي ترى الإسلاقات اللي وصل لما يسترو إن مركا أقول بس عيدا كيو يسوقون الله لما يستري هوب كا لقول تاجون يسوق مقرنا يساي الرجاجة كيسي أما اسمه يسوق لما يسترين إن مقرنا يساي هوب كا لو كردي ديبون به أو عيدا كيو أما مقرنا يساي أنوكتي إيا كوحدي إيا هورنتي إيا أوركي إيا جوتدي وكلا دسان هوب كا لقول تاجو إن مقرنا يساي دجالك وصدا وكبلو يو قرشه هذا marka qorshihii noocaas ah boqolkiiba 75 waanu burburinay kadib hawlgal ballaaran oo la sameeyay iyada oo laga duulayo xoogta sirdoonka ayaa goobo masaajido iyo dugsiyo qur'aan ah laga soo saaray hub iyo sanad ay dhuumaal ku soo galiyeen iyo xubno wakiil u ahaa argagaxsada oo ku jiro wakiilkii ugu weynaa oo lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamed argagixisada al-shabaab ayaa waxa dhabarjab weyn ku noqday fashilka ku yimiday qorshaha ay sanadaha maleegayeen kadibna 20kii Juulaay 2022 ayay khawaarijtu weerar ku soo qaadeen ciidanka deegaanka Soomaalida ee fadhigoodu ahaa xuduudka gaar ahaan deegaamada Aato Washaaqo iyo Yeed ciidankuna way iska caabiyeen weerarkaasi oo ahaa mashquulin ay ciidanka ilaalada xuduudka ku sameeyeen si ay u gudbiyaan kooxo khawaarij ah oo gudaha deegaanka soo galay kooxdan dhagar qabayaasha ah ayay argagixisadu rabtay inay ka howlgalaan deegaanka gaar ahaan wuxuu socodkoodu ku wajahnaa inay galaan buraha Ceelkarri haddaba maxay la kulmeen khawaarijtu marka ay soo galeen gudaha deegaanka Soomaalida ciidanka deegaanka ayaa sameeyay taariikh la yaab leh waxaana lagu hareeriyay hulul oo u dhow tuulada Afcade ee degmada Hargeysa horay iyo gadaal looga yimiday waxaana ku dhacay argagixisada jab filan waa ku noqday waxaana laga dhigay in la dilo iyo in la qabto in ka badan 80 xubnood oo ay ku jiraan xubno aan Soomaali ahayn ayaa nolosha lagu qabtay waxaana lagu dilay boqolaal halka dabka la saaray 13 gaadiidkii ay wateen ahaa waxaana looga qabsaday saanad tiro badan oo ay ku jiraan aaladihii qaraxyada ay rabeen inay ku dhibaateeyaan bulshada deegaanka Soomaalida taasoo noqotay jabkii ugu weynaa ee hal meel loogu geysto argagixisada al-shabaab ee la duwan galiyo taariikhda waqti xaadirkan waxa muuqata raadadkii goobihii lagu jabiyay oo aad arkayso lafahoodii iyo direeskii ay xidhnaayeen oo halkaasi wali ka sii muuqda waxaana kamid ah goobihii sida baan loogu laayay xubnihii soo galay deegaanka ee argagixisada ahaa xidhka malka ugaas oo ka tirsan tuulada unka iyo deegaanka yeelay waxa xusid mudan in muddada hawlgalkaasi socday uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar jiido hore joogay dhiirigelin u sameeyay ciidanka taasoo udub dhaxaad u noqotay in waqti kooban lagu burburiyo argagixisadii soo duushay halka guud ahaan shacabka deegaankuna sameeyeen taageero xoogan oo isugu jirta naf iyo maal oo ay ciidanka ku garab istaageen shacabka deegaanka oo si qoto dheer u fahansan dhagarta argagixisada ayaa farxadkii argagixisada ku ugaarsaday dhulka miyiga ee gobolka Afdheer jabkan ay khawaarijtu kala kulmeen deegaanka Soomaalida iyo sida geesinimada leh ee shacab iyo ciidanba looga hortagay damacoodii ayaa dhiirigelin u noqday shacabka wadanka Soomaaliya oo ay ku hayeen dhibaato daran ilka doofaar la wada sahansay ayay noqotay al-shabaab kadib fariintii cid walba ku ogaatay tabarta argagixisada iyo in la iska celin karo haddii loo midoobo la iskana dulqaadi karo guumaysigooda ee dawladda iyo shacabka deegaanka Soomaalidu ay soo bandhigeen waxaana gudaha Soomaaliya kaga furmay guluf dagaal oo aysan filanaynin oo ay ku qaadeen shacab is-abaabulay iyo ciidamada wadanka Soomaaliya oo iskaashanaya gulufkaas oo ilaa iyo waqtigan ka socda wadanka Soomaaliya
sanad kadib duulaankii khawaariijta waxaa tuulada Dharraaye ee degmada Qooxle lagu qabtay xaflad ballaadhan oo lagu abaalmariyay saraakiishii shacabkii sida weyn uga qayb qaatay hawlgalkii Huluul waxaana ka qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo komishineerka guud ee booliska deegaanka Soomaalida Sarreeye Guud Cabdi Cali Siyaad halkaas oo abaalmarino isugu jira darajooyin dalacsiin ah iyo abaalmarino sharafeed kale lagu gudoonsiyay ciidanka iyo shacabkii ka qayb qaatay hawlgalkii cidibtirka cadawgii soo duulay ciidanka deegaanku marna ma aysan joojinin hawlgalka laga ilaalinayo deegaanka argagixisada al-shabaab waxayna il gaar ah ku hayeen meelaha ay guriyeenayeen inay galaan argagixisadu oo ah dhulka buuraleyda ah ee degmada Ceelkarri oo xiga dhinaca xuduudka deegaanka Oromiya ciidanka oo ku jira hawlgalka sugidda amniga ayaa waxay ku arkeen buraha Ceelkarri iyo Iimay galbeed u dhaxeeya xubno firxad ku galay dhinaca deegaanka Oromiya oo dib ugu soo noqday buuraha kuwaas oo shacabku xogtooda soo gudbiyeen markii hore horaantii bishan August sanadka 2023 komishineerka komishinka booliska dawladda deegaanka Soomaalida ayaa hawlgal shaqo ku tagay buurahaasi markii ay xogtani soo baxday isagoo oo kor tagay qorafyada iyo godadka lagu arkay khawaariijta komishinka ayaana ciidanka ku amray inay xididada u siibaan kana soo saaraan qorafyada ay ku dhuumanayaan khawaariijtu lagana tirtiro goobahaasi oo dhan xilli uu kula hadlayay buuraha Ceelkarri ciidanka oo hawlgal ku jira meel ayna idinku filaynin iyo ku jiraan askarigu waa inuu ma dhaafin godi yar hadduu arko godka waa inuu baadho laab yar hadduu arko laabka waa inuu baadho farq yar oo meel jufa gala hadduu arko waa inuu farqayo jufka baadho meel walba waa in ma garanaysaa cagta la mari meel walba waa in cagta la mari halkanaad ka dhaqaaqaysaan 12 maanta intaan buurahan badbaadaysan tahay kama fogaba meesha marka waxaa loo baahan yahay inaad ma garanaysaa si fiican aad u baadhaan moraalkiina waan idin garab taaganay marka waxaa loo baahan yahay idinkuna inaad nimankaas soo qaban lahaydeen kaligood gasaan ciidanka deegaanka oo fulinaya amarka taliyaha ayaa hawlgal saf ballaadhan ah ku qaaday buraha Ceelkarri iyo Iimay galbeed gaar ahaan dhurbaale oo ka tirsan tuulada Jiiq oo ahayd meelaha xogteeda ciidanku hayeen ciidanka ayaana ku baacsaday xubnaha firxadka ah ee argagixisada burahaasi degmada Iimay galbeed gaar ahaan qorafyadii lagu sheegay khawaariijta inay ku gabanayaan waxayna ciidanku laayeen 6 xubnood oo ku jiro horjoogihii watay sidoo kalena lagala wareegay hubkii ay wateen ooyin baan mudooyinka ku jirnay dhulkii argagixisada soo galay eriyadan laagihii dhurbaale iyo laba nilqaad iyaan ka baaranay al-shabaabta argagixisada marka shaqadii wiilidina baa ku soo baxay 2 nin oo laaga saaran way ordayeen qowbay galaan qowbay marka galaan waxay noqdeen tiro 12 nin halkii baan xiranay markaan muddo ku fadhinay isku dayay soo baxaan jawaabtii aan bixin jirnay ma ka bixin waxaan markii hore aragnay 2 nin inta kalena godka ku jirtay waxay damceen marka inay baxaan bixitaankii baan u diidnay kadibna halkii baan ku dhamshaysnay oo waa kuwan hadda aad arkayseen waxa weeye mataqaanaa halka daafkana oo meydkoodii waa adiga arkayay waa niman sidaa hadda saaxiibkii ugu horreeyay ka soo sheekiyey dadka halkan xoolahooda iyo waxa weeye ariyada niman waxa weeye mataqaanaa intay caruurta iska eegaan meesha hadda ay ku jiraan gebiga muska la geliyo weeyaan waxa weeye kurtimiin iyo bamba ku xidhnaa markay soo baxayeen oo kuwa dadka u tala galeen inay macnihi ay soo qarxiyaan oo hadda macnihi waxa weeye ayaga kuleynay ayagoo wata oo gacmaha ku wata bamkii iyo miinadii tii waxa weeye mataqaanaa la soo qarxinay baan ayaga qarxin haddaba xubno kale oo la socday kuwan la laayay ayaa firxadkii ku galay god ciidanka ayaana muddo 19 bari ah dul fadhiyay godkii ciidankoo adeegsanaya xeelado iyo taatikooyin ciidan ayaa ugu dambayntii u suura gashay inay xubnihii godka ku jiray ay isu soo dhiibaan gacanta ciidanka
aaggan ay nimankii hadhaaga ahaa soo galeen qoladii waagii berigii xagga hulul ka soo gashay lagu qabtay hadhaagii baa meesha soo galay hadhaagii waxa weeyaan akabaabiganay ku kala jireen si guud ninka hogaaminaya intan hadhaaga wuxuu ahaa nin la dhaho xuseen gaab magaciisa waan qabannay noloshaa lagu qabtay qaybta kale godkan ku jirtayna sakariye nin la dhaha hogaaminayay isagii uu dhintoo qaybta dhimatay buu ku jiray marka buurahan aad arkaysaan iyo akabaabigan iyo godadkan uu ciidanku ka deedeeyay nimanku iyagoo godka ku jira oo waxa weeyaan uu midi kor fadhiyo qaybta kan ay god ku jiraan iyo askari ciidanka u horreeyay arko afri ah marka askarigii baa markuu arkay godkii ku dhacay askarigii baa noo sheegay waan ka garaysan weynay meesha waxa weeyaan ruux bani aadan ku jira askarigii markuu noo sheegay anagoo la yaabano meelihii baarbaarna waxba arki lama hal xabad godkii nagaga soo rideen marka saasaan ku helay wayna la dagaalameen 6 baa kaga dhimatay dagaalkii markii hore kadib haddana waxa weeyaan qaybtii kale godkay galeen markay arkeen sida loola dagaalamayo 17 habeen baan kor fadhinay raashin bay ku dhex karsan jireen xataa god marka xilligii dambe waxa weeyaan ay biyo wax walba ka dhamaadeen dagaalkii ku sii adkaaday way soo dhiibeen mid baa waxa weeyaan dhaawac godka la galo ku dhintay 5 iyagoo nool bay soo baxeen marka aaggan waxa weeyaan shaqadu saasay ahayd saasaan niman ku helay hadhaagii bay ahaayeen annaga xogaa waxaan ka helay sirdoonka iyo sahanka iyo shacabkan wada shaqaynay xogta saasaan ku helay xagga oramiye galan xilligii hadhaaga ahaan xaggaas u caran xaggaas haddana dib uga soo baxay hal iyo laba marka sirdoonka iyo wax weeyaan dadka shacabka iyo ciidanka isku xiran baa wax weeyaan ka tanasiiyay dad shacab ah wax weeyaan oo meelaha ku arkay guud ku arkay si guud ah kabaabiga iyo qorshayaasha nasiinay wuxuu ahaa wax weeyaan inay dad sameeyaan ay abaabulaan wax weeyaan dadka shacabkii waxa ay abaabulaan ay qorshe ka sameeyaan si wax weeyaan ay wadanka ay uga jabhadayaan ay uga shaqeeyaan nidaam noocaas qorshahooda maadaama ay yaraayeen inta meesha isugu hadhaagu yaraa komishinar ku-xigeenka komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo saraakiishii howlgalka fulinaysay oo ku guuleystay gacan ku soo dhigidda firxadkii khawaarijta al-shabaab ayaa ka warramay sida ay u soo afjareen cadawga argagixisada waxay isticmaalayeen horta nimankan lacag bay isticmaalayeen ayagu mayna soo baxaynina god bay ku jireen waxa weeyaan sida dadka ceelkarri oo kale email galbeed qabalayaasheeda sida majabo oo kale dhowr qabalo oo email galbeeda iyo dhowr qabalo oo degmada ceelkarri ka tirsan bay ka sameeyeen xubno kooban oo shacab oo lacag siiyaan dadka intiisa badan hunguriga ugu shaqaynayay marka telefoon bay kala hadlayaan waxa weeyaan waxa noo soo qaad lacagtaana qaado nidaam noocaas ah iyo u noolaayeen waxa weeye waxa laga yaabaa bishiiba hal mar inay adeegtaan saas haddana isla shacabkii dhexdiisa ayaa xogta noo soo sheegay maadaama shacabkeenu shacab nabadgelyada jecel yahay ayagaa noo soo sheegay ayagaa nagala howlgalay inaan nimanka godadkan oo kale eega aan ka soo saaray idiin muuqda shacabkeenna kallifay nimankani niman iminka soo galay maaha waa nimankii hore aagga hadhaaga ku ahaa weeye ninaan dhaawacayn horta kuma jiro kulli xabad baa ku wada taal xabaddii berigii huluul ay soo galeen ku dhacday nin walba iyagoo laba ay xidhka wada galeen xidhkaasaa lagu dhaawacay ciddii dhaawacisana waa seelashii nacam aagga kolkii hore ay ku sameeyeen carruurtoodii ay maqan tahay oo carruurtoodii hadda Soomaaliya ku maqan tahay weeye kolka hore la qaaday oo quraankaan idiin barayna intay ideen Xuseenkan iyo ninka Sheekh Maxamed la yidhaahay iyo nin daawee sararta ka soo jeeda Axmed la yidhaahay nimankaas ururiyay la aaday Soomaaliya carruurta aabayaashoodii bay xagga kala soo hadleen dhaawacyadii xidhka ku jiray kuwaasaan nacam xidhka ku hayay bay ahayd kuwaana saan u daba soconayba innagoo xafiiska heer federaal oo waxiga aan la kaashanayna yaanu xogtoodii aan saan u ururinaynay baan helnay shacabkeenna inagu hagay kolka saasaan godka ugu tagnay ciddii cunsiinaysaan horta gacanta ku dhignay dhowr iyo 20 xubnood baa jiray seelasha oo kuwa raashinka qaabilsan ka biyaha qaabilsan ka buskud dhiijiska qaabilsan saasay nacam ugu adeegayeen xitaa dumar 5 ku jira nimankan dhowr iyo 20 ah 5 dumar ku jira 5 dumarkaana raashinka nacam kolkii la soo qaadayo xaafadii in la heshiiyo mooyeen islaantu way baynaasaysa dartii baa loo seeleeyay islaantu nacam haddii raashinka uu ninku iska wada una aragto maxaafad kale aad leedahay kolkaan waraysanay seelashu nacam waxay noogu warbixiyeen
maxaas kalaad leedahay baa laydhihi dartii baan gabadha u seelaynay oo inaan nacam iyadiina mushaar u samayno yay yidhaheenoo saasay isaga warbixiyeen in nacam xaafadda la dhiganayo habeen barhkii la bixinayo saasay nacam adeegga ugu fulin jireen mootona waa loo gaday 2 mooto oo nacam nimanka seelashaa loo gaday baa jiray mootogaasaa loogu adeegayay kolkaa cidda u fududaysee nacam inay intaa ku jiraan ay kaliftay waa nimanka markii hore inay isku soo baxaan way awoodi waayeen xilligii nacam ciidanka booliska la soo ururiyay oo la yidhi dib u habeyn baa lagu samaynaynaa la yidhi oo nacam jijiga la isugu keenay intaasay nacam intan isku timid kolkii hore nin walba 2 iyo 3 bay xilka ku kala jireen intaasay nacam intan isku timid oo fursadday nacam godka intay ku sahansadaan ay meel ku galaan intaa yar bay kiftiga heleen intaa kolkay heleenna xogtii waan helay waan dul istaagnay hal midna iyada waa wadadan ilaa 77kii wadadan mariin bay ahaan jirtay wadadan ilaa daaway ka bilaabantay ceel ka rimartay ilaa halkaa huluul kaga dhaadhacda intay buur dhuubo marto ceel baar marto halkaa ilaa ka garabkeeda gashee halkaa ceel murun iyo dhaadhacda waa wadadaasi weligee mariin bay ahaan jirtay saan u xidhi lahayn baan hadda qorshaheedii ciidanka booliska haddaan nahay qorshaheedii saan ku xidhi lahaynna waan qaadanay waanan xidhnay hadda waan ka guulaysanay khasaare la'aan baan ka guulaysanay ayagoo waxbana yeelin had way arkaysa hor meesha ku jireen nimanku habeenkii macnihii gobolku markuu dhaco bay waxay bilaabayaan waxa weeye mataqaanaa guurguurasho inay macnihii baxaan halkaa waa faraq xaggan waxa weeye waa faraq kale xaggan waa dow marka ciidanku waxa weeyaan 17 cisho ciidankii meeshan waardiga ka haya ama macnihii dhafataagaba ma seexan jir hurdo waan uga dhaaranay marka annaguna waxaan u diidnay inay baxaan weliba annagoo doonaynay inaan nolosha ku qabanno si aan uga helno xogo ama macnihii waxa weeye faa'iidooyin waana ku guulaysanay ilaahayna wuu nagu guulay qaar ka mid ah xubnaha dhagarqabayaasha khawaariijta ee la qabtay oo hadlay iyaga oo ku sugan isla godkii laga soo saaray ayaa ka warbixiyey qaabka ay ugu beereen alqushaash iyo goobaha ay ka raaceen iyo sidoo kale damacoodu wuxuu ahaa magaca حفو حسن إبراهيم maxaad ka tirsanay ururka al-shabaab diinta laag ku jirta 2 san iyo bar 3 sanaad lu talagalay cid kaga beestay Bulu Barak waa ka tagay Bulu Barak xagee ka tirsan tahay gobolka Baay maxaad ku socotay hadda maxaad soo doontay maxaad ku socotay hadda waxaad ku socday Ethiopia baa horeynaysan banday Ethiopia baa horeynaysan Ethiopia horeynaysan xilmaad waddanka soo gashay sanad ilaa 2 bilood hadda waa ku jirna sanad iyo ilaa 2 bilood sanad ilaa 2 bilood hadda xageed ka timaadeen hadda meelaha anta la joogo god goormaad gasheen godka miya 19 waa ku jirna 19 yaa idin hogaaminayay idin Zakariya adis deel lagu qabtay aniga miya ano nafta oo arday dhimanay waa rafaan waa daal yaa lee qabtay marka maxaad ku dagaalamaysaa ما دين دوال ما بنا دين بدغلميس هذا محل لا ما حد ما حد دولة سفان ولا نوصل دوينيس سفان بنا نونيس سفان با أرد ونو دمناي بنا نونيس هذا الحمد لله وفي عناي maka kabanki nawas Jibril Rasha wani so qaad u gaaf dura
barumsa biyaaban barumsa waratan nunjiran barumsa waratan jadi namni nu dhufe namni biyyan nu him barumsa san barachuu baan barumsa bakka barumsaa san yoo achi deemee achani bakki Soomaaliya magacaygu waa Jibriil Rashaad waqtiyadii hore waxbarasho ayaad baranaysaa intay noogu dhaheen ayay noo yeedheen waxbarashada ayaan u dhaqaaqnay markaan goobtiina loogu yeedhnay tagnayna goobtaasina waa goob Soomaaliya ka mid ah waxbarashada aad idinku yeedhnayna waa waxbarashada diinta idinkuna waxaad baranaysaan waxbarashada jihaadka diinta haddana goobta jihaadka diinta ayaad gelaysaan annaguna waan aamusnay anigu waxaan ku dhashay deegaanka Oromiya gaar ahaan magaalada Shashabane tababarka markaan dhammaystayna waxaa la igeeyey dalka Soomaaliya gobolka Jubaland jihaadka diintana waa inuu noqdaa quraanka iyo xadiiska in dalka lagu xukumo dadka aan quraanka iyo xadiiska lagu maamulina islaan ma aha ayay inagu tababareen furimaha dagaalka anagoo ku jirno ayaadna soo weerarteen furimaha intaan ku jirnayna waa 15 maalmood Zakariyana goobtan isagana keenay isagana halkan ayaa lagu dilay goobtan ayaa lagu aasay anaguna 15 maalmood ayaan gaajo iyo haraad u adkaysan weynay hukumina godamo jahana sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen ciidanku xubnaha ay adeegsanayeen al-shabaab ee ku sugnaa deegaamadaasi kuwaas oo ka warramaya qaabka ay ugu adeegi jireen argagixisada ku dhuumanaysay buurahaasi nimankan argagixisada si fudud bay nagu soo galeen sida ay nagu soo galeen hulul markay ka soo baxeen way kala firdhadeen firdhadkii shimbiraale meel ay dhahaan bay dagaal ka galeen ka bacdi eriyada qawyahay soo galeen markay soo galeen niman aan qaraabanahay yay u yimaadeen ka diin ahaanna al-shabaab aad ba uga fog waxay dhahan niman yahow magangaliye ahaan waan soconaa Oromiyaan u soconaaye dhowr maalmood ilaa 10 bari meelahan ama 5 bari camal magangaliye ahaan na magangaliyay dhahan marka anu ma joogino marka way ii sheegeen oo abtiyaashay baahan oo aad baan isu jeclayno marka ii sheegeen ma nafashilino waan la qaatay marka ka bacdi intaanan u imaanin way u tageen nimankii waxay dhahan warman yahow dawladii iyo dadkii waa isku dhex jirnaa meeja rafaad baa naga soo gaaraya baxay dhahan baxa markay dhahan way noqdeen oo ayagu waan soo tashanayna noo imaaday inigoo dhan bay dhahan way u yimaadeen marka adduunyo waxbay siiyeen marka ama laba qori iyo waxbaan inay siinayna bal intaan meel san aan meel ka dayanay dhahan oo intaa una magangaliye marka qoliyii ana ila soo xiriireen way ii sheegeen bal inta nimanka ka baxayaan nacaaw aan isgarabsano nimanka anagoon dawladna ogaanin aan bixinay inta hoosteedana waxay wadeen nimanka inay dadka maadaama oo aqeeda ahaan oo aad ugu fog yahay inay adduunyo siiyaan oo ay hoos galaan oo diin ahaan ninkii u abaabulmana ay ku dayaan marka way la soo hadleen waxay dhahan warneeyo 5 bari camal Soomaaliya ma tagi kartaa bay dhahan oo report yar lagu soo siiyay mayaan ku yiri ma tagi karaan ku yiri Soomaaliya ma tagi karaan ku haya way la soo hadleen marka mootan waa ku gadeena waad nayar qarinaysaa inta shaqa waxa burbaleen baa noo soo socdo inta burbaleenka noo socdo oo aan meel ka tagayn waa inta wanadna caawisay marka ayadoo saasa markii dambe meeji ayadoo ku jiraan baa ilaa 7 nin meelahaas ka goosatay oo goosadkii baan u aragnay in dib naga soo gaaraya ta kale waxay rabeen nimanka argagixisada dadiyow ay u baahnaayeen inay ayagoo meeji ku jira inay wax gaarsiiyaan marka talada annaga u haynay oo haday juu dhahan ina way cabsanayaan waxay dhahan war niman saasa waan u baahanahay oo inaan wax yeelayno wax ma yeelan kartaan baan ku niri illiga ay hore noo imaadeen waxay ahaayeen sodomeeyo 20 ba markii hore noo imaatay dhowr iyo 10 kalena meel kale ay jireen ayagoo dhowr 10 kale meel jira 20kii bay 7 ka goosatay marka goosad ahaan ay Soomaaliya u noqdeen marka kuwa godka ku jirayna dhowr iyo 10 bay ahaayeen oo waa dad la isku kan keenay oo 5 6 2 1 kolba meel firdhad ah 5 meelaha lagu laayay wax ka soo firdhaday iyo niman eelood ka soo kacay iyo adu niman saas oo soo firdhaday bahana waa la isku geeyay way bateen marka godka saas ay ku galeen akabaabiga laasbaar iyo jeeq u dhaxayna waa dhul aan lama dagaan oo godgod oo ay ku dhuuman karaan way haayeen marka halkaas wax ku siin jirnay way nala balaaratay ayadoo saasa war nimankii waan bixinaynaa intaan ka bixinayna bal dad wax nala siiyo oo nala qoodiyo oo aad u dadiyow baan abaabulnay oo wax nala qariyo muhiimadana saas ahayd ayagana danbay wateen danta ay wateen waxay ahayd hoos ahaan
inay wax dhaadhiciyaan oo mar bay nala tashadeen oo dhahan war carruur baan u baahannahay ciyaal adu aan wax barna waan ka diidnay marka ayagana bixitaankii kolba markii bixid loo sheegaba wuxuunbaa marka dadka waa isku abaartii bay ahayd oo dadku waxbay siin jireen marka abaartii bay dadku waxbay siin jireen saas ahayd nimanka argagixisada saas si fudud bay nagu soo galeen dadkana saasuu ahaa ka bacdi marka minshaar dadku waxbay u sameeyeen marka waxbay u sameeyeen minshaari ay u sameeyeen waxaa ka mid ah dad ay 10 kun u sameeyeen dad 5 kun u sameeyeen dadku way kala sarreeyeen oo adu kolba nimba waxbuu qaadan jiray marka dadkana oo abaarna way ahayd oo xooluhuna muusa gadmaynin oo xoolaha haweenkii waxaan xoolaha ka gadanaya neefkii oo 3 kun iyo 2 kun aan la siisan karin oo intaa dad ku heshaba ayaan tahay 6 kun iyo 5 kun meelaha ka siisan jiray waan ku fiicnaanay laba baasu diin iyo waxaba laba baasuusan dadkana way ugaayeen oo adduunyada markay arkeen dadka intay fiiriyeen bay arkeen dadku inuusan aqeeyda ahaan ayaga u dhawaan wuxuu u baahan yahayna abaartan adduunyo ay tahay wixii bay ku wadeen marka waxay ka dhaxeleen hal oo diin ahaan markay ay wadwadeen marka dad bay ay ka dhaxeleen oo adeegayo oo u yar fiicanba lacag 120 kun meelahaas ay ii soo direen mootan soo siistay marka awalkayga hore jaad ma cuni jirin mar baan cuni jirin waan iska daayay marka ka siyaasad ahaan baan u sameeyay mootada inaan jaadna ku soo qaado jaadkana aan isticmaalo si burbaleenka aan wadan marka ay uusan u fashilmin teetal ahaan ninku ugu adag baan ahaa oo wax qarinayo oo wax waxaynayo wax kala maareenayo marka siyaasadda Itoobiya bay soo qabatay mayna nin wax kala waxaynayo saasan u ahaa ka bacdi yeerid baa laygu sameeyay ciidan anoo lay soo dirin ayaan degmada imid markaan imid waa lay qaaday degmada jigjigaan aaday ka bacdi saas qorshihii iyo burbaleenkii inta dhaxda aan wadada ku jiray hatta xarig layguma sameeynin gaariga baan saarnaa sidii ta kala dadka waxay ugu adag ay ku abaabulayeen war haday dawladda ku maqasho waa bas way ku dhamaatay dadkan hadda shacabka ayagoon hatta diiniyan duulku ugu ordeyeen waxa la leeyahay war ma dawladda ma u tagtay bas way ku dhamaatay wax ku maqanba ma jiro waa dhiman magacan tuutalan isku naqaanay ma jireen ninka mas'uulka magacan isku naqaanay baa jiray marka magacan adu laba magacan isku naqaanay waa jir saacid wax noocaas ay marka aniga asaga isku naqaanay dad kale isku kan yaqaanay ma jirin adeega anu ma u geen jirin oo dadyow aan dhisanay oo inoo dhisnaaba u geen jiray marka dadkaas u geen jiray godka iyaga ka soo bixi jiray tuulo laasbar dhahan daganahay qarkeeda iyay imaan jireen marka beer macalin Usmaan leeyahay ya raashinka loo dhigi jiray marka iyaga ka qaadan jiray godka inta ka soo baxan bay ka qaadan jiray lacagaha anay ugu soo dirayeen lacagaha ana u soo saari jiray ma Itoobiya laga soo tiri jiray doolow baa laga soo tiri jiray marka ninka mas'uulka yaa lambarkiisa Xuseen Gaaba yaa lambarkayga qoran jiray marka nin aan wada xiriir baan lahayn ba lacag ii soo diri jiray marka lambarkiisa baan arkayay iyo magaciisa oo lacagta igu soo dhacaysay wax xiriir ma sameyn ma garanayo magaca waxa ku qoran baan garanayo waxaan ka tirsanahay degmada Calkari gaar ahaan qabalaha Laasbar marka waxa yimid niman ururka al-shabaab kamid ah ninka ilaahay Macalin Usmaan yaa ayaan yimid habeen buu yimid habeenkii wuxuu yiri in keen kaalay meel geed igala soo qaad geedkii baan maajaan u kacnay wuxuu yiri fikir baan ku sheegi fikirka inaad la qaataan dooni buu yiri fikirka muxuu yahay baan iri wuxuu yiri islaam baa tahay islaam ma tihid ma islaam baan ahay baan iri islaam ma tihid buu yiri maseen baa islaam ku tahay haa baan iri islaam san lagu ma aha buu yiri haye sidee weeyaan islaamnimadu waxa weeyo ugu yiri dastuur baan inagu yaan ku dhaqannaa kateen aan joogno waxaan ku dhaqannaa waa dastuurka aan ku dhaqannaa islaamnimo ma aha waxaan dooni islaamnimada dhabta ah inaan ku dhaqannaa dooni fikirka madala qaadan buu ugu yiri fikirka muxuu yahay baan ku yiri islaam anagu ilaahay maan ileenayaan caabudna dad islaam oo shanta waqti tukanna waan nahay fikirka muxuu yahay buu yaan iri wuxuu waa fikirka al-shabaab ay ku dhaqmaan weeyaan buu ugu yiri meel saasan soo fadhinay geed baan asna dhanka kaga fadhiyana maaji ma kaga fadhiyay waan ka yara durkay dhinac baan uga yara durkay waxaan ugu fikirka qoor qaadan mahayo oo ma qaadan hayo yaan iri wuxuu qaado ma qaadan hayo waan ka diiday ugu celceliyo fikirka ila qaado iri maya baan iri ma qaadan hayo marka hay'adu waan kala tagnay
habeen labaad buu igu soo noqday fikirkii waad qaatay oo macnaha waad ila qaadan mise ila qaadan maysi maya kula qaadan mahayaan idhi ugu celceliyo aad buu igu celceliyo waan ka diiday haddana habeen saddexaad buu igu soo noqday dhanku marka hore habeenadii hore laba dhinac buu ila baxay habeenkii dambe ee ugu dambeeyay igu soo noqday marka dhinac kale uu ila baxay wuxuu yidhi fikirka inaad ila qaataan dooni maxamed shariifow waxaan maya kula qaadan mahayo anigu fikir cali shabaab kula qaadan mahayo mana doonahayaan idhi markaan saa idhi haye ila qaadan mayso ma ahaa lacag 4,000 uu ii dhiibay lacagtan 4,000 ee qaado oo haddaan ila qaadanayn hay sheegin buu yidhi 4,000 qaadan mahayo nimanka waxooda meejuu galaa waa meel khariban iga daabaan idhi maya qaado buu yidhi maya kula qaadan mahayaan idhi waan diiday marka ugu celceliyo waan ka qaaday intaan soo qaaday yaan 1 riyaal u celiyay 3,000 waan ka qaado 1 riyaal waan u celiyay marka sidaas ay ahayd taas anigu wardambiis ninka fikirkiisa ii soo jeediyay isku qabeel waan nahay gabadha aan qabo hooyeed buu qabaa kulay isku qabalay man ku wada noolayn oo qabalaha aan buu joogo kamid aha ma anisan ooga diiday halkii iigu wardambiis waxaa la yidhi waa la ii yeedhay markii la ii yeedhay waan imid marka waan isfashiliyey oo shir baan iska fashiliyey oo intaasan anigu ogaabaan shirkaan ka hadloon ka dhawaaq maamulka degmada Iimay Galbeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa door ka qaatay howlgalkan iyaga oo tilmaamay shacabku inuu xil ka saaran yahay inay garab istaagaan ciidankooda howlgalka ku jira nabadgelyada iyo nolosha bulshadana lagu ilaalinayo waxaan joogaa degmada Iimay Galbeed qabalaha jiiq meesha qolada shabaabta lagu qabanaya qabalahan joogaa qolada shabaabta waa qolo qawaamiin waa qolo gaale waa qolo godo ku jiro waa dad god ku jiro meel kale naaga soo duulay oo gacanta hadda lagu hayo oo la hayo ayagoo nolosha lagu hayo hadii ilaahay raalli ka noqday waxay noo dhaafeen kale lafraad way nagu soo noqdeen midkii nagu soo noqtina hadda waa la hayaa ciidamada new booliska si adag bay gacan bir ugu qabteen annagoo garab taagan qabalaha jiiq waana ku guuleysteenoo ayagoo nool bay soo xareeyeen oo ay haayaan waa qolo diinta meel laga dhacay oo shacabka meel laga dhacay oo dhalinyarada hadafka ka luminay oo waxa weeyaan diin ay haastaan diin kristan haasta waa diin islaam baysan hawl badan baa inoo soo qabsantay hadda kahor laakiin haddana kow ma joogto dhalinyarada meel kasta oo joogto deegaanka Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka labadaba duqoodiya dhaqanka cilmaha diinka dhammaan ciidanka wareegaya maamuladiisa maartay wasiirada waxaan faranaynaa waxa meeshaas ka yeedhi ee dhibaatada hadda ka jirtay tii dad degan iyo deegaamo iyo nolol fujin lahayd inay tahay waxaan kaga talbixinaynaa in laga hortago oo dhibaatadaas inaynan hadda inoo sii jirin arrinteeda ayaa la bariga sidaan safar la dhalinyarooyinka iyo dhammaan dadka magacdooda ciidanka new boolice waa niman aad u adag waa niman aad iyo aad boqol uma hasan waa niman aad iyo aad dawladooda aad u adag tahay maadaama tahay godka halkaas ku jira anaga joogno waan arkay iyaga soo duulay mid iyaga godka aan arkay waan saf aragnay waan garab istaagnay laakiin anaga wixii biye wixii cunto garab istaag hooyadaan nahay haddaan nahay dhalinyaro haddaan nahay maxamed haddaan nahay maamul haddaan nahay dawlad waan garab taaganahay waan garab taagnay biyo badax la ka dhigo waan garab taaganahay waan soo dhaweynaa waan u jaarsanahay waan iska celinaa bakaata magaalada waa gaaraha ilaad ma dhanto waan la jihaadaynaa godka soo ogaana wada ogaynaa buurahani waa buuro istiraatiiji ah buuruhu waxa weeye waa buuro silsilada buuruhu waxay ka soo bilowdaan ilaa iyo ceel birta dushan la dhahay ka soo bilowdaan ilaa iyo bareed iyo galbeed bay buurahan galaan buuraha intooda badan meel walba oo marto waa meel biyo leh iyo macnaha masnooyinka iyo biyaha ku badan xilliga iyada ahayd ay soo galeen firirkan horta wuxuu u gudbay dhankan iyo bareed u gudbay Oromiya buu galay in hadda muddo ah wuxuu ku maqnaa aaga kore ee Oromiya iyo bareed buu ku maqnaa sheekadii marka ay ahayd ciidamadii waa la dhimay markii ay maqleen bay anaga deegaan ahaan dib ugu soo noqdeen inta badan bareed iyo
ceelkari iyo email meel dhexdooda ah oo center iyo halkaasay gabaadka ka dhiganayeen oo ku sugnaayeen xogtooda kulli informationkooda inta badan waan maqli jiray inta ka dambaysa hata ayay soo gudbeen xaggan ceelkari iyo email iyo ceelkari dhexdooda buuraha nabay soo gudbeen meeshan laasbaar la dhaho wayaan ceelwaaq maxay ahayd badow buur dhuubo iyo meeshan la dhaho dhurbaale oo u dhaxayso laasbaar iyo qabalahan la dhaho majabe aagaasay ka dhaqdhaqaaqayeen kulley surtoonka oo shaqooyin muhiim ah qabtay iyo ciidanka macnaha booliska deegaanka oo isku xidhnaa xogtii oo la raadiyey oo la daba socday baa markii dambe lagu hagayo lagu helay mid ka mid ah dadka hal abuurka leh ee bulshada ayaa tix gobay ah oo ciidanka ku dhiirigelinaya cadowgana ku darayo halkaasi ku cabiray argagixiso caalami ah oo xumaha caadaystay dunidana cambaar foolxun iyo ceeb u wada taal caqiide xun shabaab baa lahoo diinta caasiyey caluushu shaqaysiya shabaab waa cul gooni ah waa cadaawad diinteenna iyo caamo jaahilihe caqli kuma shaqeeyaan xaqana cagama saaraan caqli kuma shaqaysaan xaqana cagama saartaane soomaalida caqabadaad ku tahay aad carqaladayso iyo cudurradaad beertay baan kuugu ciilqabay haddaad anigii ii soo camdiday carin waa gaal markaad ciidda hooyo iyo afdheer camal u soo aaday ood cidhifka email galbeed cagaha soo saartay ciiriga dhulbaalay degeen ciidho laga qaadiye cagmadhiga liyu boolis iyo ciidamada gaarka ciyaaraha dagaalkana horaan looga kala caagay iyo shacabka ciiddiisa oo ceebsan araggaaga dhan u ciirsan maysid markii laysu kaa celiyey haliigyada siday ku cuneen waa rag ciilqabeya meydkan caddadii weyne ee ciiryada yaalla ama uu waraabaha cunee haadka ku casheeyey maxaabiistan ceegagta caalamkaba yaabay cashir waa lagu dhigay haddaad ku cabsan doontaan cagta meeja i geli kartaa lagu ciidhiyaaye halkii laga cabsoodana dib baa looga celiyaaye cirka layska waa ruux inuu caga ku gaadhaaye cudud laguma soo qaadan karo buuraha culus calafkaba waxaan kugu jirin kuu cuntami waaye waxaan cunaha kuu mari karin baa cajaa'ibe shaygaan caddaan karin dhaqmadii waad ku caajisiye cadow aan ku daynaynin waa laga cabsoodaaye shabaab ciidda aan leenahay iyo calanka deegaanka arrin ii cad weeyaan inaad dib uga caagtaane halkii cayma kuu noqon lahayd carar ku sii gaadha oo caqligiinni hore xumaa dib u cambaareeya afartaa ciyaar lama hadlay cayn makay gaad ma cabbiray sidii sheekh cilmi leh oo ciraab galayo cutub kalena iigaan rabaa inaan caddeeyaaye ciidankayga gaarkaan rabaa inaan casumaaye iyagaa ku caanbaxay inay cadowga riixaane iyagaa bulshada caawiyo oo caafimaad taree iyagaa cagkii aan lahayn ciidda soo dhigaye cagta hoose inuu eebbahayn geeyo cadowgooda cizi iyo wanaag baan ilaah u codsanayaay intaasaan ku darayaa si kastaba ha aatee ciidanka deegaanka soomaalida oo hadh iyo habeenba ku howlan sidii bulshadu ugu seexan lahayd amni oo uusan inoogu soo tallaabi lahayn fikirka khawaarijta ee halista daran ku haya bulshada aan walaalahna ee waddanka soomaaliya ayaa ku guulaystay ciribtirka argagixisadii soo duushay sida ay u dhannayd waxayna argagixisadii intii dhibata mooye intoodii kale ay ku jiraan xabsiyada deegaanka